qaranku ay soo saareen sida la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuuriga marka qaraarkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhriyi doonaa haddii ilaahay dhaahdo inagoo la soconna inaanay wax dacwadi jirin ama wax cabasho la soo gudbay aanay jirin hore inaanaan garnaq u gelin qaraarkaasaanu ayaanu ku dhawaaqaynaa marka qaraarkaan idiin akhriyaya isagaana ah maxay ahaydey kama dambaysta ah bismillahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda somaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay ma'da obliig da'da eber 5/2017 kuna taariikhaysan 28 bishii 11aad 2017 ujeedada qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somaliland markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay ka'da obliig xa'ka obliig 1/7/8 obliig 2017 ee ku taariikhaysan 23 bisha 11aad 2017 kana soo baxay guddiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somaliland ujeedadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland 2017 kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada kumeelgaadhka ah ee doorashada madaxweynaha استيتانات لبي استيتانات صدح استيتانات يقضب حير نمبر 14 لبدا كوني كوي توانكا يو حير نمبر 2001 يلي فاقيدا كواد لباد وحكا بدلكي كابيستا لغو سميي حيركا يا حيركا تطبيق صدن 2007 xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax ka beddelkii kaabista xeerka lagu sameeyay markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay 13 bishii 11aad 2017 ee saddex xisbi qaran oo kala ah xisbiga koowaad xisbiga ucud oo helay 23,141 cod una dhiganta 4.17% iyo xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod una dhiganta 55.1% iyo xisbiga wadani oo helay 226,029 cod una dhiganta 40.73% markay u cadaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada kumeelgaadhka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood kana bilaabanta maalintii natiijada kumeelgaadhka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka 66 faqradda koowaad ee xeer number 20/2001 markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaadhka ah ay ku dhawaaqeen 21 bishii 11aad 2017 markay aragtay qodobka 66aad faqraddiisa saddexaad ee xeer number 20/2001 oo sheegaya in maxkamadda sare marka ay hesho qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarka maxkamadda sare dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada kumeelgaadhka ah ee doorashada madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga ucud
oo helay 13,141 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba. laba xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod oo u dhiganta 55.1 boqolkiiba. iyo xisbiga wadani oo helay 226,929 cod una dhiganta 40.73 boqolkiiba. taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guulaystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guulaystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 11aad 2017 guddiga garsoorka kow aadan xaaji cali axmed gudoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamadda sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen. intaasuu inoogu xiran yahay. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.